waxaa sii kordhaya cabashada bulshada ka imaanaysa kalluumaystada ee ku aadan maraakiib shisheeye oo xeebaha ka kalluumaysta kuwaas oo dhibaatooyin aad u xooggan u geysta walaal soo dhow magacaaga maxamed ibrahim abdi yiraahdaa maxamed maxaad ka cabanaysaa waxaan ka caawinayaa waxaan ahay kalluumaystada Jubbaland maraakiibtan maarta oo meelihii aan ka kalluumaysan jirnay qalabka dhigtay qalabka geliyaan qalabkii baa noo baabacay duumahana wax qalab saaran ma hadda labadii bilood hadda soo dhaafadhan mar 10 naga go'day mar 5 naga go'day wixii dhan baa meesha noo baabacay marka idaan u daawanay meel aan ka daawanay ma naqaano wixii hadda qaar baa saariin hata maraakiibta kortashooda qaar baa saaran oo maraakiibta qaadatay maraakiibta ayaga soo qaaday hata qaar baan ugu tagnay ma naqaano qaar baa guriyaha iska yaalan oo jeejahan oo kala go'go'an oo hadda la diyaatiraayo marka idna la hadashay iyo id maarta wax noo qabanaysay iyo hooleen oo qasaar baa meesha ka imaaday waxa jirta qasaar aan soo koobi karin laba doomood baa ilaa 3 doomood baan ahay kuwa kale waa ka maqayn hadda hawsha iyo dacwadii waa socotaa ilaa tirada guud meeqa doonay gaaraysa dhibaato loo geystay hadda intaan ogahay 3 doomood baa qalab ka maqan aniga iyo doon kale iyo mid kale 3 doomood baan ahay kuwa falfeesha ilaa kooyam ilaa gooyin baa qalabkii la geliyay waa inaan meeshan qaraamo jirna waay marka xaaladaas jirtana waa intaas ka caawinayna maraakiibtaas ma aad ugu soo dhawaadaan hadda kor way tagaan hoos way tagaan meel walba way geliyaan waka marka maxaa codsan lahayd marka waxaan ka codsanayaa qalabka naga jarjaraan han siiyaan qalabkana noo soo gudaan anaga awal board shirkadna ma siinan kambanina ma siinan kambanina ma shaqeyn jeebkeena baa maarta aan isku maal gelinay wixii hadda naga go'an hanoo eliyaan qalabkeena ayagana meel kale aadan maxaa ku baqleen intaas ugu baqlaan dawladda maxaa ugu baqleen dawladda waxaan ugu baqlaa maraakiibta markii la soo gelinayo dadka kalluumaystada waa loo sheegaa waa la ogeysiyaa nama ogeysin wasaaradda anshuuraad bay qaataan waa la ogeysiyaa qayb baa maarta la siiyaa annagana qaybtaas aad baa waxaas dhan kama hayno waxaan rabnaa inay qalabkeena siiyaan maraakiibtan ayaga keenay meel ay u jihiyaan ayna kala jihiyaan assalaamu calaykum caqabadaha ka waran idinka haysta bada maya hadda wax caqabad ma haysta male hadda wax walba waa okay waka doonihii idin dhibi jiray ee shay maraakiibta shay ka waran maraakiib waa jiraan maraakiibta waxaa la rabaa xataa hadday dawladda shati ka haysto in macnaa biyo koro ay galaan maraakiibta hadda meelihii doomahayni ay ka shaqaynayeen iyo wax dhigtaan maalin walba marka caqabadaasa iska jirta maxay idinku sameeyeen marka waxay leeyihiin booyad baad soo goosatay xarig baad naga goosatay iyagana macnaha waxay marayaanba shabaagtaadii iyo qalabkaagii ayay marayaan waana gaadiid kaas kaa weyn haddii aad macnaha qaylisana isbool layr toosh weyna lagu qabanaya ilaa intay joogaan ayaga marka maraakiibtaas ya maraakiibta xagee joogaan 25 meel ay maalaan may doomahayna 25 meel ay tagaan ee jeedarka kagana laakiin iyaga 12 13 meelahaas joogaan dawladda maxaa ugu baaqleed marka dawladda macnaha in ay kala fogeeyaan oo maraakiibtan ma garad maraakiibtan macnaha hadday xataa dawladda shati ka haystaan in ay ka fogaadaan meelaha shacabka aad baad maasantahay markan Faadumaana la joogta oo iyaduna kamida haweenka kalluunka ka ganacsada laftirkeedu bal suuqa iyo isbedel ku yimid maalmaha jirtay bal maanta ka waran ilaahay ku madarnaada kisto waxa caqabadna waa doomankii bariyahan kalluunka yar yahay dabeeshanna waa sababay u tahay maraakiibtana kulay caqabadeen ugu hayaan sida ogtihiin oo maamulkan ee la socdaan meelaha loogu talagelinay imaadaan doomankiina meelo ka shisha loogu talagalay ee aadaan laakiin hadda meesha ayaga ay joogaan hooseyso 12 meel hadduu markabkii soo istaago maxaa is leedahay doonti uu ka awood sareeyaa inuu ku tuntaa macquul ah hadda bariyaan xafiisyada waxa noogu imaanaysa cawashada oo ka socoto dhanka maraakiibta oo ay leeyihiin maxaa la jiray kalluumaysiga iyo doomankii iyo maraakiibta dhibaato aad iyo aad u baan isku heeyaan marka saas iyadoo ay tahay waxaan leenahay maamulkii ana ka codsanayna ama sidii hadda dadka nala joogo gudoomiyaasha naga sareeyo inay iyo wasaaradii oo kalluumaysiga inay wax ka qabtaan insha Allah ayagana waxay dheen wax waa ka qabanayna sida ugu dhaqsiyaha badan shabaag markay doomankana ay soo jaro waa loo celiyaa annagana wixii aan ayaga ka soo helnana waa u celinaa marka alxamdulillah aad iyo aad aan soo dhaweynayna shaqo wanaagsan aad ma santahay Faadumo oo kamida haweenka kalluunka ka ganacsada oo waliba ilmaha ka bisha oo maantay aynu kula kulnay suuqa kalluunka lagu iibiyo iyadoo noo faahfaahinaysay cabasho maalmahan bulshada ka imaanaysay oo la xiriirtay suuqa oo nadaafadiisa hoos u dhacday laakiin gudoomiye askar markii loo magacaabay isbedel badan uu yimid nadaafadii la hagaajiyay suuqii sidoo kale rinjiyeen ee ku socoto iyo sidoo kale
kalluunka oo aad suuqa ugu soo badanaya marka aad baad u mahadsantihiin waxaan eegi doonaa dhanka xeebta ayaan goordhow tegi doonaa bal iyaduna sida dhaqdhaqaaqa doomaha imanaya iyo kalluumaysatada kalluunka keenaya ayaan eegi doonaa